السلام عليكم fududaynta nolosha iyo yaraynta waxaadan u baahnayn waa qaab nololeed baryahan aad ugu soo badanaya caalamka kutubna laga alifay waana ereyga loogu yeero minimalism tabsiit alxayaa fududaynta nolosha taasoo ah in dharkaada inta aad isticmaasho keliya aad la soo harto alaabta badan ee guriga daadsan iska yarayso caqliyadda lahaanshiyaha keliya ku dhisan aad meel iska dhigto tafaasiisha ayaan ku ogaanaynaa mawduucan kusoo dhawaada muuqaalkan aan uga hadlayna fududaynta nolosha anigoo Cumar Inshaar ayaa idiin soo gudbinay sida caadiga bani aadamku uu jecel yahay hantinta lahaanshiyaha shay xataa hadduuna isticmaalaynin keliya in uu dareemo lahaanshiyaha dhar badan kaba badan alaab badan inkastuu qofkan dareemayo alaabtan badan in ay culaab ku tahay in ay culays ku hayso armaajada ama makhsanka aad dharka gashato imise shay oo aadan u baahnin ayaa ku jiro aadan muddo dheer xiran keliya aad u haysato in uun maalin aad xiran doonto maalintaasna aadan aqoonin goortay tahay waqtigaas aad xiran doonto ma taqaanid keliya waxaa niyadda kaaga jiro waxaa laga yaabaa inaan maalin u baahdo gaar ahaan dumarka ayaa ugu badan dadka haysa dhar ayna xiranin arrinku wuxuu gaari heer ay garan weyda gabadhu wax ay xirato kuna jahwareerto tobaneeyada saako tobaneeyada goonno intaasoo joogo kaba ah laakiin gabadhaas hadday haysato dhowr shay oo taya leh la xakamayn karo waxaa sahlan in ay doorato kii ay xiran lahayd habayntooda iyo nidaamintoodana sahlan tahay minimalismka yarayntu waxay ku leedahay shaygii aadan muddo bil ah xiran weligaa xiran maysid ama uma baahnid haddii shaygan dharka ah aadan xiranin muddo bil ah uma baahnid markii laga reebo dabcan dharka munaasabadaha goonida loo xirto waxaa jira xadiid uu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo mawduucan dhan soo koobaya oo ah maa qalla wa kafaa khayrun mima kathura wa alhaa wixii yar ee kugu filan hadduu noqdo dhar ama alaab kale ayaa ka fiican mima kathura wa alhaa oo ah karaakiibtaas kumanaankaa saxan digsi weel ee guriga buuxiyey ee aadan u baahnayn waqtiga kaaga baxaya qiyaas markaad ku fikirto habaynta tobaneeyadaas shay ee armaajada ka buuxo ee aadan u baahnayn in arrinku gaaro noqoshada dhibaato gooni ah hawl gooni ah oo fikirkeeda iyo walwalkeeda leh markaad aragto waxa isku dhex yaacsan habeyntooda dabcan waqti ayaa ku baxayo dadka ku baaqayo minimalismka nolosha fudud waxay ku leeyihiin waa in weelashaas aadan u baahnayn ee guriga buuxiyey aad siiso kumanaanka u baahan ee sida maalinlaha u adeegsan doono waxaa laga yaabaa adoo intaasoo weel haysto daraskaada in ay la'yihiin saxan ay wax ku cunaan haddaba maad u geysid maanta markii laba qof is aroosayaan waxaa la soo gadaa kumanaan shay keliya in la dhigo dadkuna arkaan aan hal isticmaalaynin gurigana buuxinayo hantina ku baxayso wax looga baahan yahayna jirin macquulna tahay in ay dayn galeen labadan qof oo is aroosayo in wiilkan uu dayn ku soo qaaday alaabtan aanan loo baahnayn keliya meeshaas la dhigaayo heblaayaba way dhigatay ama hebelba wuu dhigtay laakiin hawl kale aanan haynin minimalismka iyo fududaynta noloshu waxay ku leeyihiin uma baahnid waxaa jira qiso lamaano Soomaaliyeed oo is aroosay waxaan iga sheekay qofkii joogay haddaba wiilkii wax aroosayay ayaa dhigay alaab ilaa heer la dhihi karo way badan tahay weliba taya leh laakiin gabadhii ayaa ku qanci weyday kuna qasabtay in uu soo badiyo inuu alaab kala keeno aanan loo baahnayn keliya heblaayaba way haysataa muddo kadib gabadhii ayaa ku tiri maalintii haddaan warkaada maqli lahaa waxaanu alaab ah culaab waxaanan ahayn iguma hayaan markaan guriga habaynayo booska ay qabsanayaan wax ay faa'iido leeyihiin malahan loomana baahno ee fadlan naga bixi ama suuqa gee alaabtan guriga ka bixi meeshay nugu cariirinayaane laakiin shalay waxay lahayd soo gad fududaynta nolosha waa yaraynta waxaadan u baahnayn markaan wax soo iibsanayno in aan u soo iibsano keliya inaan u baahannahay ee aanan u soo gadanin in aan iska soo gadanayno ama dad kale aan ku aragnay heblaayaba way haysataa oo ah runtii waxa ugu xun ee noloshan ku soo mari karo in aad shay u soo iibsato hebel ama heblaayaba way haystaan wax kale aadan u soo gadanin tusaale ahaan mobilada sanad walba soo baxa ee magaca kaliya ku kala duwan Samsung ama iPhone haddaad haysato tusaale ahaan Note 9 maxaad uga baahan tahay Note 10 isku wax ayay qabanayaan shirkadaha caalamka ra'sumaaliga waxay hawshoodu tahay muudsashada jeebkaada ayagoo adeegsanayo wadooyin aanan la iska caabin karin xayeysiino taasoo qofku uu sanad walba soo gadanayo mobile cusub kaliya inuu yahay iPhone kii ugu dambeeyay iPhone 11 ama wuu cusub yahay
fududaynta noloshu waxay ku leedahay haddaad haysato mobile shaqaynayo oo adeega aad uga baahan tahay kuu fulin karo in aadan u baahnayn mobile kale in aadan u baahnayn Note 10 ama iPhone 11 minimalismku ma aan kaliya dhinaca maadiga ee xitaa dhinaca nafsiga ruuxiga nolosha qofka ayay taabanaysaa sida yaraynta dareemida degdega walwalka in wax uun ay ku dhaafayaan in aad naftaada ku layliso isdejinta hadduu musalsal ku dhaafo waxba ma khasaaraysid barnaamij hebel ayaa soo galayo in aad noqoto qof ku jira degdeg iyo waxba i dhaafayo waxa hubaal ah in waxaas aad u degdegayso isu murjinaysa ahayn wax qiimo leh wax qiimo ku soo kordhaya noloshaada in qofku saacad walba markay ku taagan tahay isu diyaariyo dhageysiga warka waxa hubaal ah wixii muhiim ah ee caalamka ka dhaco ama wax xun ama wax wanaagsan in aad ogaanayso xataa adigoona dhageysanin idaacadda TV hawalwalin wixii muhiim ah waad ogaan kartaa albasaata nolosha fudud waxaa jiro maanta rag milyaneer ah oo u jeestay dhinaca nolosha aanan wawda ahayn in ay doortaan ku noolaashada nolol ka fog israafka iyo alaabta qaaliga ayagoo leh si aan deganaan u dareenno xataa waxa laga yaabaa inaan wax kala ka ahayn in ay dareemaan nolol dhadhan leh inay xirtaan dhar aan qaali ahayn waxay leeyihiin bukhli ma ahan ee waa in aan bani aadinimadeena ilaashano intii cudurro murugo nagu dhici lahaayeen inta badan milyaneerada israaciya lacagta natiijadooda dambe ama cudurro dilaa ayaa ku dhaco ama way isdilaan dadka inta badan caalamka maanta isdilo waa kuwa bilyaneerada ama dadka nolosha sarreysa ku nool ilaahay noloshan adduun uguma talagelin in raaxa 100% lagu dareemo taasa sugin maalin dhow waxaan Twitterka ku arkay qof leh dukaan yar oo qiimo dhimis sameeyay ayaan waxaan ku arkay milkiilaha Facebook Mark Zuckerberg oo ka adeeganayo oo tabcan bilyaneera waliba alaabta qaar leh kuwan waa qaali ma rabno wuxuu awoodaa in asagoo gurigiisa jiifo shaqaale u dirsado ama ka dalbada dharka ugu qaalsan meeshuu rabo laakiin raaxo ma dareemayo adeegaas yarka ah dareemida qofnimo ayaa micno ku soo kordhinaysa noloshiisa adduunku ma aansan soo sheegnay meel raaxa 100% lagu dareemayo janno ma ahan hayso adaad rabto waxa hanti yaal caalamka waxa uu Mark waxaas u samaynayo waa in uu dareemo micnaha nolosha xataa waad aragtaan dharka uu xirto dhar aad qaali u amaahan funaanadaas ayuu iska xirtaa asagoo leh dadnimadayda ayaan ilaashanayaa si ayna cudurro igu dhicin xaqiiqada ayaa ah in wax badan weelashaas badan dharka badan ee aadan u baahnayn ay ku dhibayaan cunayaan waqtigaada maskaxdaada awooddaada alaabta meel walba daadsan laakiin sidoo kale xaqiiqada ayaa ah in aan ogaano in weelashaas dharkaas maadiyaadkaas ahayn ujeed kaliya yihiin in ay kuu fududeeyaan noloshaada lahaanshiyuhu ma keenayo sacaado iyo raynrayn gooni ah qiimana ma lahan shaygaas adigoona u baahnayn waxa qiimaha u yeelayo waa waxa uu kuugu fadhiyo qiimaha uu noloshaada ku soo kordhinayo waxa aad ku qabsanayso iyo waxa uu kuu fududaynayo kabaha waxaa loogu talagalay in la xirto lagu socdo hawl kale ma lahan laakiin hadday kuu yaalaan 20 joog goormaad xiran waana maxay qiimaha ay noloshaada ku soo kordhinaysa 20 joog oo kaba ah oo aadan isticmaalaynin kaliya inay meeshaas yaalaan kab 6 bilood ku taalo waa maxay qiimaha ay noloshaada ku soo kordhinayso annagoo arrinkan raacayno aan ku soconno aragti ah alaab nagu filan guri aanan buuxinaynin maalinlana u isticmaalayno dumarka maadaama ay hawsha guriga hayaan sida caadada ah way dareemi karaan dhibaatada alaabta badan ee guriga buuxisay ee meel walba daadsan gabdhaha waxaan kula talin lahayn ahna sida uu ku leeyahay buugaas minimalismka in aad ka takhalusto dhammaan weelashaas guriga buuxiyay ciddii u baahan in aad siiso dhinaca quruxda guriga xitaa ma ahan in aad armaajooyin badan haysato ee waa in aad haysato bad bannaan meel masaaxo bannaan guriga quruxdiisa waa taas ma ahan alaab isi saaran sidoo kale minimalismka waxaa ka mid ah ama fududaynta nolosha yaraynta xiriirada aadka u badan ee buuqa iyo isku dhexyaaca keenayo yaraynta boqolaalka kanaal ee aad daawato TV ama YouTube xitaa inta aad u aragto in aad wax ka faa'iideyso la soo har haddaad u aragto ogaansho in aadan waxba ka faa'iideynin unsubscribe dheh daawan hala socon haddii aan raacno wadada ah mimma qalla wa kafaa khayrun mimma kathura wa alhaa
waxaad awoodaa kala reebidda dakhliga ku soo galo in ay kuu soo harto qayb aad xitaa maalgashi kusii samayn karto ama ugu yaraan in aad ku noolaato nolol ilaa bisha aad haysanayso dakhli kugu filan intii aad hal mar hadda wax soo wada iibsato kadibna bisha markay 5 tahay aad eber soo istaagto weji gabaxiyo wax ma haysa aad ku noolaato tabsiit alxayaaga waa in aad waxaad u baahantahay kaliya aad soo iibsato xitaa waxay dhahaan markaad suuqa aadayso intaadan guriga ka bixin qor warqad soo qaada qor waxa aad u baahan tahay ma ahan waxa aad soo gadanayso waxa aad u baahantahay 1 iyo 2 dheh kadibna si toos ah suuqa u tag shaygaas aad qortay soo gado haddii aad suuqa iska aado adoo wax soo gadanayo waxaad arki markaad guriga kusoo laabato adoo soo gatay waxaadan u baahanayn kaliya xitaa laga yaabo inaad ku aragtay discount ama qiimo dhimis ayaa lagu sameeyay laakiin uma baahnid waxaad u soo gadanaysaa in qiimo dhimis lagu sameeyay fududaynta noloshu waa shay aad iyo aad muhiim u ah saamayn la taaban karana ku yeelayo noloshaada mawduucana maanta tan ayuu ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu